dhammaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka Soomaaliyeed caawa oo ku beegan habeenkii 27aad ee Ramadaan oo 10kii dambe ah oo ah maalmihii barakaysnaa oo quraanku lagu sheegay oo ahayd habeenkii Laylatul Qadriga waxaan dhammaan dadka muslimiinta dadka Soomaaliyeed uga baryayaa fadliga habeenkan inuu naxariis iyo deganaan Ilaahay siiyo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan Ilaahay ugu rajeynayaa in ay dibtii faraha badneed muddada dheer ku jiraan inuu Ilaahay ka saaro qulubtooda isku soo jeediyo iyagana Ilaahay idinkiis midnimadooda iyo wadajirkooda iyo dawladnimadooda Ilaahay u taabageliyo sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo gudoomiyaha golaha shacabka ee caawa saqdan dhexe lagu doortay magaalada Muqdisho gudoomiye Aadan Madoobe oo horeyna u soo noqday gudoomiye waliba xilli adag oo xilligii kala guurka oo TFGdii iyo maxaakimtii ay ku bahoobeen oo walaaloobeen oo ay 550 xildhibaan noqday xilligaasna hogaaminayay waxaan u rajeynayaa in marxaladan adag ee labaad inuu noqdo gudoomiye ka samata bixiya isku wada bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo halka ugu hambaliyeeyo gudoomiyaha ku meel gaarka ahaa ee golaha shacabka gudoomiye Dhabancad iyo guddigii doorashooyinka oo runtii muujiyay isxilqaan dulqaad iyo karti dheeri ah waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadnaqo xildhibaanada guud ahaan maanta muujiyay waqtiga dheer ee Soomaaliyeed ku afuray sidii u gargaari lahaayeen qarankooda iyo bulshadooda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo musharaxiinta iyo dhammaan siyaasiyiinta maanta ka qayb qaadatay in ballantaas 27ka ay hirgasho ilaa iyo saaka ilaa ay caawa fiidki intay ka bilaabaneysay waxa lagu jiray dadaal dheer oo lagu xaqiijinayo in ay xildhibaanadu galaan hoolkii ay ku codeyn lahaayeen oo codeyntu dhacdo iyadoo dib badan laga mutaystay isortaag badan la sameeyay dulqaadkii iyo wada hadaladii dheeraad waxa lagu guuleystay in doorashadii ay ku dhacdo si nabad ah waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa iyadana ciidamada ammaanka oo runtii iyagoo amar khaldan haystay haddana muujiyay in ay fahmaan wadciga oo ay la qaybsadaan dadka arinta ku hawshanaa siday arinta u xalin lahaayeen si gaar ah ayaan uga mahad celinayaa dhalinyarada ammaanka magaalada Muqdisho iyo garoonka magaalada Muqdisho ay ku dhex taalo hangarka lagu dooranayo mas'uuliyiinta ka ah sida isxilqaanka lahayd ay arinta ugu dhabar adeegeen oo ugu guuleysteen waxa intaas kadib rajeynayaa inta hartay ee gudoomiyaasha gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad in iyadana ku soo dhamaato si degan oo xasilan oo runtii bulshada Soomaaliyeed midnimadooda ururisa dabcan bulsho kala qaybsan xildhibaano la kala qaybiyay adkaatay in qofkii dalka u dantaha la garto dood fara badan iyo isxilqaan fara badan oo ay muujiyeen xildhibaanada iyo dadka siyaasiyiinta ee doonaya inuu dalkan samata baxo kadib waxa lagu guuleystay inuu isbedel degan oo hufan oo walaalnimo u dhaco waxaan rajeynayaa lama kala guuleysan waa la wada guuleystay dalkuna wuxuu galay marxalad cusub wuxuu yeeshay gudoon cusub cidii Ilaahay u gartay ayaa gudoon ku guuleysatay laakiin muhiimadeenu waxa ahayd in ay doorashadu dhacdo oo gudoon cusub la doorto waxaan uga mahad celinayaa intii dadaalkaas ka qayb qaadatay qayb kasta oo yihiin waxaan rajeynayaa inta dhiban inay si wanaagsan ku dhacdo waxaan rajeynayaa muddada yar ee hartay ee ka hartay doorashooyinka markay dhamaadaan gudoomiye ku-xigeenadu dhiman madaxweynenimaduna iyadana ay ku dhamaato si degan oo xasiloon oo dadka Soomaaliyeed u horseeda deganaansho iyo xasilooni iyo isku duubni waxaan rajeynayaa Ilaahayna uga baryayaa caawa 27 bulshada Soomaaliyeed inuu ka dulqaado khilaafaadkii iyo dhibaatooyinkii hareeyay siyaasadda Soomaaliya muddadii u dambeysay oo kalifay dhiig inuu daato oo kalifay burbur badan oo hay'adihii dawladda ku dhacay oo uu kalifay khilaafaad hareeyay in dalku uu mugdi galo hubanti la'aanna galo
waxaan hadalkayga caawa kusoo koobayaa hambalyadaas. waxaan si gaara iyadana uga mahad celinayaa beesha caalamka oo runtii mar walba jeclayd garabna taagnay dadka Soomaaliyeed sidii u guuleysan lahaayeen, sidii loo ilaalin lahaa nidaamka, sidii loogu guuleysan lahaa in dalku doorasho degan ka dhacdo, gaar ahaan ciidamada AMISOM oo hadda loo bixiyay ADMIS, khaasatan generaalka hogaamiya sector 1 ee ku taalo meesha doorashada ka dhaceysay. dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay inay maanta doorashada si nabdoon ku dhacdo oo degan waan u mahad celinayaa. siyaasiyiinta Soomaaliyeed, musharaxiinta dhammaantood iyo xildhibaanada waxaan u rajaynayaa in ay ku guuleystaan in inta dhiman ay si nabdoon oo degan oo Ilaahay ugu soo dhameeyo iyaguna ay gacan ka geystaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.